sababta wadaniyiinta ummad Soomaaliyeed meel baa joogta caafimaad ku waara soo dhawaada laagta comment-ga iyo subscribe-ka waa dhinaciina ninka anigu ma sheegayo adigu hadda la socotay social media ninka qofku yahay waa inaad noo sheegtid comment-gina waa akhri doona ninka waa inaad noo sheegtid daar cas wuxuu ka yiraahday ayaan dhageysanaynaa bal wuxuu ka yiraahday hal iyo labo ayaan ka dhageysanaynaa waxa yaa ninka uu karbaashay say tahay wariyaha hunuf ku dhalay ma adaa la agdiiday wariyaha ninka naagtiisa waxa taa wariyaha inta soo waday soo fariisi YouTube soo lacag ugu hele ma nin gabadhow qabo inta soo kaxeeyay keenay ma taqaanaa Facebook iyo YouTube inta iimaan la'aanta la yaabta ka tagtay ka carartay ma kaasa lacag diido hunuf ku dhalay maxaa beel u sheegaysaa waxa kale oo yaab igu dilay waxyaabaha ma dhibaanka lagu ceebaynayo waxa kamid ah majeertin ismood baan u bixiyay majeertin ismood wuxuu jecel yahay markuu majeertin ninkaas wuxuu ka mid yahay waxay rasadaan ii sheego rag maandhood lacag loo ballan qaad in la siinaayo ee waxyaalaha ka hadlayaan ay ka leexdaan ayuu ka mid yahay marjeertin ismood qabiilkiisa ayuu ka dhumanaa ka wadaya daar caso qabiilkiisa ayuu ka dhumanaya ayuu ka wadaya qabiilkiisa daar caso waa u gafay laakiinse uu ku saxnaa in nin raga inuu xaaskiisa social media lacag ku raadsado sida rag badan oo taqaanaan waa sii daawanayna inkastoo aan ogahay inuu doonayo inuu aniga ma taqaan intaan magaciisa sheego uu caan noqdo hunufkaas waxa weeye waxay leeyahay ma taqaan bow kabatarihi muxuu soo sheegay bowe marka hadlaya bow kabatarihi baa hadlaya war adiga haba ma daar caso intaas inuu ka aqoon yahay u mareynay ka aqli badan yahay ka xigmad badan yahay dadka kabaha tolaaya midiyaha iyo alaabta sameynaya waa dad ilaahay uu siiyay aqoon aan anagu lahayn waa xigmad ilaahay ku soo dejiyay qof alaabtiisa sameeysan kara hadana intii ku cantiisa alaab ku sameeyay iibinaya alaabta dadka sameeya Mareykan iyo wadada hormaray dadkaas waa billionaire maaha millionaire waa billionaire Soomaalidu million iyo billion ma ka taqaano dadka uu lacagta badan daar caso ninku wuxuu ku caynaa kaba inuu sameeyo qabiilkeeda baanin ma dhibaana adaana ka cod macaan adaana ka aqoon badan adaana ka qurux badan adaana ka qabiil adag maxaad ka falaysaa inaad qolo kale aad maanta daba ruuciso foto u ruuxdo gadaal bas ka saxay bismillaahir rahmaanir rahiim garbaashkan habiq laysa group TV kaanu ka bilaabaya YouTube ku cusub ma ogin iyo Facebook waxaan ku soo qaadanayaa waa nin ma dhibaana adduun xalka ba hodododo bay baratay nin baa hadda koor wuxuu yiri waxa laga hayaa kaalis la kaysan hunuf ku dhalay kaalis la kaysan hunuf ku dhalay qabiilka Soomaaliyeed ayuu liidayaa isma oga qabiilada Soomaaliyeed inay waxba isdeereen kulli faqri yihiin kulli ayaga wala qaata alaab sameyn kara ayaga wala qaata dadka Soomaaliyeed maanta isa ka tabanaynin dhibaato u geysteen oo dambi ku jirin oo dad soo dirin oo dad xoolo soo dhicin oo xalaal qodata ah ayuu rabaa in uu liido wadaar caso qaxootigu ah Yurubta cayr qaata ayuu rabaa qof Soomaaliyeed oo masaakiin ah inuu iska dhigo inuu asagu ka laandheerisay ama ka boqran yahay waa dambiga umad Soomaaliyeed ku jirto meel bay laayihiin nimanka walaalaheena ma dhibaan meel wax ka sii waxa weeye habeen dhaweytu soo galay live soo dhahay lacag baa la siinayaa lacag baan diiday wariyaha hunuf ku dhalay ma adaa la agdiiday wariyaha ninka naagtiisa waxa taa wariyaha inta soo waday soo fariisi YouTube soo lacag ugu hele inta noor ma nin gabadhow qabo inta soo kaxeeyay keenay ma taqaanaa Facebook iyo YouTube أنا أنت سوكت على سنة ده أنت إيمان لأنت لا يابتك تكتك عرفت أنت سوكت على سنة كاسل عجز hunuf كله ما حد بيلو شيء جيسه عايز أنا واحد كلو يا بيقول لي إنه قفل يده وحيابها ما دباك لو حيابيني وحكم ده مجيتين اسمود بنو بحي مجيتين اسمود wuxuu jecel yahay markuu majaartaska dhigo inkastoo aan ogahay inuu doonayo inuu aniga ma taqaan intaan magaciisa sheego uu caan noqdo anigu magaciisa sheegi maye ninka sheegay caan dhalay waxa weeye ma sheegayo waxay leeyahay ma taqaan bow kabatarihi muxuu soo sheegay bowe marka hadlaya bow kabatarihi baa hadlaya war adiga haba ma dhibaana adaana ka cod macaan adaana ka aqoon badan adaana ka qurux badan
أنا كقبيل أذك ما حد كفلا يسأل القلق كلا عاد ما ترى الدبر عيسى فتوه الروح ذو أنا قبيل لما تاجر سني قبيل لك بسور جودو نيكا وشيء ولي قبيل كموسى هذين ولي قبيلة كموسى هذين ومد صوماليات أيود إحنا عاد وياهاي عد قبيل كيس الدريم كرتانا مجرته وانين روعداية وانين وناسن وانين أفقابا وانين حكمت بدن وانين داعدة وانين أنت السوشيال ميديا صوق شو وحرال صنبا ده كلا أنا مركل جيم هذا أنا مركل جيم هذا وانيك وحرال صنبا ده كلا وسيم وذينا ما تسمى ذح بناؤن ولاد حداد دونس إنا عن نقطنا سيابا ما سيب مدح بنان أون ولادي waxaa lii soo sheegay daahir cali inuu wacay ninka asaga wuuna u sheegay inuu ku soo biiro gruubka habiqlays wuu ka diiday wuxuu yidhaahay aniga social media anaa iskeenay xiniyeyaa saaranahay hawsheeda anigaan rabo ayaan wadanaya cid inaan ka mid ahaada ma rabo telefoonka dhexsaan isku dagaalay daahir cali waa xanaaqay telefoonka waa ku damiyey kadibna live-kan mise video-gan buu sameeyey daahir cali waa markii ninka telefoonka kusoo damiyey taas anigu waa la socday waan lii soo sheegay intaas in ka badan baa dhex martay in maartay social media soo galo oo maanta hadda ka diyaariyo qaylo labaad iyo buuq labaad ma rabo laakiinse telefoonka dhexdiisa ayaa la isku dagaalay ninkaas u malayn maayo inuu soo jawaabi doono hadduu soo jawaabana wuxuu ku soo jawaabi doonaa erayo ah daahir daacuun iyo daahir maxay ahayd doqod daahir waxyaalahaasoo dhihi doonaan waxyaala ka badan ma dhihi doono uma soo fariisan doono videona kama diyaarin doono waa sii daawan lagu noqdaa jadsaada u wada sheeq oo caan laguma noqdo sidaan caanimo maaha saan waa isbahdiraysaa baawa kawatalihii muxuu sheegay kawatalihii ma kawatal dhalay laba jinaal buu leeyahay waxaasi waa weeye waxaasi waa magac xumadaada waxaasi waa ayaan daradaada ninkaas si caadi u noolow kaamitiga noqon shalay gabadhaad qabta inta keenta nin gabadhoo qaba keenay facebook oo yiri aan kili ku raadsado kaasi hunguri yo u dhintay kaasi magac xumo u dhintay habiqlaysa group waa garbaashiisa dadkaas oo kaleeto hadda qanaana runta ka sheegaynaa hunuf hunuf dhalay oo liita oo shilin raadinayo oo xaaska uu qabo marwadiisa sharafta leh ee soo gelinayo baraha bulshada soo fariisinaya soo hunguri u raadsado ayaa dad la soo horfariisanaya lacag baandiyo oo maxaa didi kartaa karbaashkaas in nin raga Soomaaliyeed oo wali oo muslim inuu xaaskiisa keeno lacag iyo laagna ku raadsado waan ka soo horjeedaa